وآخر الزمان قيامه أيانا سودو على مدني وحا أي توس أموجينيسا إن آخر الزمان كي لغو جيرا سيدي النبي ونوشيغي صلى الله عليه وسلم halkani ma ahan Ruushka ma ahan Mareykanka ma ahan Yurub iyo wadamada aadka u qabo halkani waa Sacuudiga waa wadan kamid ah wadamada ugu kulul caalamka maantana kamid ah wadamada ugu qabo caalamka sidii nabigu uu sheegay ayaana dhacday waxaan ku hayaan kula wadaagayaa laba dhacdo oo aad iyo aad u waaweyn kuwaasi oo qiyaamihii toos u muujinaya nabiguna uu isagu afkiisa nooga sheegay sallallahu alayhi wasallam labadii dhacdaba haddan ku hayaan kula wadaagayaa hadii subaxii aad ku soo kacdo qoraxda oo meesha ay u dhacday ka soo laabatay hadii aad subaxii ku soo kacdo ha rumaysan weyn hana la yaabin hagaag soo dhawaada saaxiibayaal marka hore intaan kula wadaagin dhacdada iyo dhacdooyinkan la yaab kale qaaraanka iska bixi muuqaalka hal like iyo hal subscribe baa laga rabaa hal like saar hal subscribe saar lana wadaag saaxiibada dhacdadani waa dhacdo aad iyo aad u weyn run ahaantii qaatumada Ilaahay ha noo suubiyo aad baad u mahadsantahay hagaag aan kula wadaago laba dhacdo ayaan kula wadaagaya oo aad ka nixi doonto run ahaantii nabiguna uu sheegay tan koobaad Sacuudiga maalmihii la soo dhaafay waxa ka da'ay roobab aad iyo aad u xoogan waxaana isbedelay guud ahaan cimiladii ayaa isbedeshay Sacuudigu waxa uu kamid ahaa wadamada ugu kulul caalamka darajadiisu waxa ay dhaafi jirtay 50 iyo wax ka badan bay gaari jirtay yacni digriga kulaylku waxa uu gaari jiray wax ka badan 50 ayuu mararka qaar gaari jiray wadamada normalka ah Soomaaliya kala markan ka soo qaadno waa 25 27 intaas buu u laalaabtaa marka ugu kulushay Soomaaliya waa 30 marka ugu kulushay ad la yaaban tahay Soomaaliya waa 30 cimiladu yacni kulaylka marka uu jiro daran 31 32 haday ugu badatay 32 gaartaa Sacuudigu ma ahayn 32 ayaan ka cararayna leenahay kulayl baa jira Sacuudiga waxa weeye waxa uu gaari jiray 50 darajo 20 buu naga sii badan yahay banaanka laamiga hadii la dhigo oo kun hadii laamiga lagu shubo way shilmeen soo xad garata ma aad buu shimid dacs hadda laamiga kula socoto isagoo difqayo da'aya ayaad arkaysaa okay heerkaas buu ahaa marka heerkaas kulaylkii gaarsiisanaa maanta waxa uu marayaa in uu dhinaca kale isku gadiyo oo digriigi intuu zero tago zero uu dhaafo ee uu marayo -5 uu marayo halkaas bay Sacuudigu marayaan run ahaantii waxa jira xadiis saxiix ah oo nabiga lagu wariyay sallallahu alayhi wasallam oo yiri qiyaamuhu imaan maayo ilaa wadamadan carabta jasiirada carabta iyo wadamadan saxaraha ay ku laabtaan dooxooyin iyo sidoo kale webiyaal ay ku laabtaan ha kolba waxaan xadiidkan ka dheehanaynaa in horaantii in webiyaal iyo dooxooyin wadankaasi ahaan jiray wadamadan carabta jasiiradaha yacni saxaraha leh ay ahaan jireen laakiin nabigu waxa uu sheegay in ay u laaban doonaan sidoodii hore hagaag hadda sawiradan aad arkaysaan waxa ay muujinayaan dhulkii Sacuudiga oo doog noqday xilligii nabiga waxa uu ahaa dhul angagan oo meelo yar yar hadda labadan sawir isku eeg sawirada kore ee aad arkaysaan waxa la qaaday baa la leeyahay 1987 iyo 91 baa la kala qaaday sida ay isku soo badbedelayaan fiiri dhulkiisu isku bedelay marka hore waa uu angagnaa kadibna 2012 sidaas buu dhulku noqonayaa dhulku sawiradan ayuu yeeshay wuxuu noqday dhul doog ah oo dhir badan ayaa ka soo baxday dhul xooluhu ay ku noolaan karaan oo qabowbu isku bedelay dhulkii Sacuudiga waa dhulkii kulaan jiray nabiguna waxa uu yiri sallallahu alayhi wasallam ma dhacayso qiyaamuhu ma imaanayo ilaa ay wadamadan ku laabtaan halkoodii hadda marka baraf aad iyo aad u fara badan ayaa da'aya barafkaasi waxa uu sababi karaa in webiyaal ay ka halkaasi ka burqadaan ayuu barafkaasi sababi karaa sababtoo ah waxa weeye maxaa keena webiga waxa keena ama buur buu ka soo burqadaan buur ayuu ka soo burqanayaa webiyaashu ay ka soo burqadaan ama dhul baraf ah meel u dhow barafkaas oo dhalaala ayaa waxa uu sababaa in biyo badan ay ka imaadaan oo halkaas webiyaal qulqulaya iyo dooxooyin lagu arko marka maadaama hadda aysan jirin Sacuudiga ilo yacni buuro ka soo burqada oo waaweyn oo la yaqaano maadaama aysan jirin sidaasi bedelkeedii waxa laga yaabaa in baraf aad u fara badan uu buurahaasi dul fariisan doono ama meelo badan uu dul fariisto isagoo dhalaalaya uu sababi doono in uu noqdo webiyaal iyo dooxooyin isku bedelo dhulka sidaan buu noqday aad arkaysaan hagaag marka aad ayaa loola yaaban yahay adduunka oo dhan ayaa falanqeynaya waa barafka ka da'aya wadanka Sacuudiga cimiladii aad iyo isku bedeshay qabow daran ayaa jira maanta qabow ayay guryaha kula jira
dadkii shalay guryaha kuleylka ka gali jiray maanta haddana qabowgii ayay maaragtay intay iska damiyeen hiitaradii ayay qabowgii guryaha kula jiraan. Okay, taa xaga yidhi waxay ahayd calaamad ka mid ah calaamadii uu nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam. waxaa jirta calaamad kale oo iyaduna aad iyo aad u weyn, taas oo uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam qiyaamuhu ma dhacayo ilaa webiga Furaat la yiraahay uu angago oo uu biyo waayo. nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam webiga Furaat ee ka soo bilowda buuraha galbeed ee Turkiga ka soo bilowda ee wadamada Suuriya iyo Ciraaq mara, nabigu waxa uu yiri webigaasi waa uu guri doonaa, biyaha way ka dhamaan doonaan. marka biyuhu ay ka dhamaadaana waxa dhici doonta in halkaasi ay ka soo baxdo buur dahab ah. bal hada u fiirso, buur dahab ah in ay ka soo baxdo. webigii Furaat sidaan buu ahaan jiray markiisa hore, maantana waa uu angagan yahay oo sidaan ayuu noqday. biyo la'aan ayaa dadkii webigaasi ku tiirsanaa ku dhacday. soo waxad margarata ma waa uu angagay. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam buur dahab ayaa ka soo bixi doonta. buurta dahabka ah ayay dadka oo dhani aadi doonaan. qof kasta hina waxa uu isleeyahay buurta dahabka ah ka faa'iideyso oo dahab soo jabso, laakiin waa la isku dagaali doonaa. 9% qofna waxa ku dhiman doona, waa la isku dagaalaya. 100 qof hadii ay meel isugu imaadaan oo ay buurtaas dabcaan inay jabsadaan way isdagaalayaan. 100 qofna waxa ka soo haraya hal qof. 99 kale waa ay dhimanayaan. 99 kale waa ay dhimanayaan 100 qof. bal hadda fiiri, nabiga ayaa yiri sallallahu alayhi wasallam marka nabigu saxaabada uu uga digo wuxuu yiri hadaad gaartaan ha isku aadinina oo dahabkaasi faraha ka qaada isaga taga. qof kasta dadkaasi ku dagaalamaya, qof kasta waxa uu isleeyahay adiga ayaa hari doona oo dahab ka qaadan doona, laakiin hal qof ayaa qaadan doona, hal qof ayaa hari doona. sidaas ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam. maanta marka webigii Furaat isaguna waa uu guray, waa uu angagay sida aad arkaysaan. sanadihii 10kii sano ee ugu dambeysay biyo yaraan buu waday, marba marka dambeysay biyuhu sii yaraanayeen, marba marka dambeysay sii yaraanayeen, heer meelaha qaar wuxuu gaaray ay uu sag noqdo oo uu guro gabi ahaanba. halkaas buu gaaray. marka calaamadahani waxa ay kamid yihiin calaamadaha ugu waaweyn, sababtoo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa noo sheegay calaamadihii qiyaamaha ayayna kamid yihiin. maantana waxa la joogaa xilli aakhir zaman ah, waxaana ka dareemi kartaa adduunyadii sida ay u fidnowday. ilaahay subhanahu wa ta'ala qaatumadaha noo suubiyo meel allaala meel aan joognaba. ilaahay qaatumadaha noo suubiyo. intii dhimatay ee muslimiina ilaahay u raxmado, inaga ilaahay noo naxariisto. haddii qiyaamuhu uu nagu dhacana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan hoojin. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan nagu hoojin oo kuwa daabadu ay wajiga uga qorto inay ahlu naar yihiin uusan nagu darin ayaan ilaahay ka baryaynaa. adinkana waad mahadsantihiin. muuqaalkan meel dheer gaarsii, like saar haddaadan saarin, subscribe dhow nagu soo biir haddaadan nagu soo biirin, ra'yigaagana iyo waxay kula tahay nala wadaag. midda kale waxa weeye ducooyinka aad taqaano kuwooda ugu muhiimsan qaybta hoose nagu la wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.